wacan oo wanaagsan daawade kula soo dhowow barnaamijkeena faaqidaada siyaasadda iyo tiknolojiyadda alaaba waxaad ka heshaa muuqaaladan bartana youtube haddii ay tahay markii kugu horeysa o aadna soo booqoto fadlan sabskrayb saar gambaleelkana furo si aan u ogaano muuqaalka la garee wixii araawad qabto noogu reeb qaybta hoose ee kommentiga lana wadaag saaxiibka kugu dhow asxaabtaada oo diyaargarow helidda muuqaal cusub xilli dhowaan dadka baraha bulshada adeegsada ay hadal hayeen muuqaalka qadiibka xaramka maka cabdiraxmaan sudaysi ayay dadku isdhaafsanayeen fahamkooda ku aadan xiriirka sacuudiga iyo israa'iil sheekh sudaysi ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay khudbadiisa ayaana dhalisay hadalhayn weyn haddaba waxaa halkan idinkugu soo gudbinaynaa taariikhda sheekh cabdiraxmaan sudaysi waxa uu ku dhashay magaalada qaasim ee dalka sacuudi carabiya sanadkii wuxuu waxbarashadiisa ka bilaabay magaalada riyaad waxa uu qur-aanka kariimka xifdiyey isagoo jira 12 sano sudaysi waxa uu ka qalin jabiyey kulliyadda shareecada ee jaamacadda umulqura sanadkii 1982 waxa uu cilmiga shareecada ka qaatay shahaadada PhD-ga sanadkii 1995 waxaana loo magacaabay imaamka masjidka alxaramayn 1984 isaga oo 22 jir ah shiiqa waxa uu ka mid yahay macallimiinta sare ee wax ka dhiga jaamacadda umulqura qabashadiisii kacbada ee bedeshay taariikhda sacuudiga sanadkii 2012 waxaa loo magacaabay madaxa guud ee qaabilsan arrimaha xarameynka masjidka nebiga iyo xaramka kadib dekreeta ka soo baxday boqorkii sacuudiga boqor salmaan ayaa 2016 u xeel saaray inuu noqdo qadiibka xaramka sanadkan sudaysi waxaa mar kale loo magacaabay madaxa guud ee xarameynka muddo 4 sano ah cabdiraxmaan sudaysi khudbadii uu xaramka maka ka jeediyey oo dhalisay su'aalo badan oo ku aadan mowqifka sacuudiga ee israa'iil mowqifka rasmiga ah ee dalalka carabta ee heshiiska imaaraadka iyo israa'iil ayaa waxa uu kordhiyey cabsida iyo rajada dadka qaar ay ka qabaan in mustaqbalka la arki doono israa'iil oo galaangal weyn ku yeelatay gobolka carabta gaar ahaan qaliijka cabsidaas ayaa laga dareemi karaa baraha bulshada ay ku wada xiriirto halkaas oo ay dadku aaraadooda gaarka ah ku wadaagayaan waxyaabaha ka dhalan kara heshiiska imaaraadka carabta iyo israa'iil gaar ahaan qadiyadda falastiin iyo xaaladda amni ee siyaasadeed ee carabta twitterka isticmaasha ayaa waxa ay ka dhursugayaan go'aan kasta oo mas-uuliyiinta qaliijka ay soo saaraan taas oo ay suurtagal tahay inay ka helaan wax tilmaamaya waxa ka dhici kara maalmaha soo aadan dadka baraha bulshada isticmaala ayaa maalmo ka hor waxa isla dhex marayeen muuqaalka qadiibka xaramka maka cabdiraxmaan sudaysi gaar ahaan dadka twitterka isticmaala kuwaas oo soo qaadanayay muuqaalo ay ka soo gooyeen khudbadii jimcaha ee uu sudays jeediyey halkaas oo ay dadku isku dhaafsanayeen fahamkooda ku aadan alwalaa'u walbaraa iyo xiriirka uu nebi maxamed sallallahu عليه وسلم لها يهودا ومات ودرعه مرهونة عند يهودي وعامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من زروعهم وثمارهم وأحسن إلى جاره اليهودي مما كان سببا في إسلامه sudays ayaa yidhi sida ku cad muuqaalka la soo jiray waxaa ka mid ah digniinaha muhiimka ah ee masaa'isha caqiidada iyo in dadku mawduuca alwalaa'u walbaraa iyada oo dadku ay isku qaldayaan iimaanka qalbiga iyo in lagu dhaqmo wanaagga marka ay timaado xiriirka ka dhexeeya shakhsiga iyo dowladaha ka hor inta uusan qadiibka khudbadda ku dhammaynin duca uu u ducaynayo falastiiniyiinta ayaa waxa uu soo qaatay xadiiska ah caqiidada dhabta ah iyo in la adeeco imaamka hogaamiyaha si ka duwan waxa uu ku tilmaamay khawaarijta xadgudbaya iyo axsaabta baadiyeysan iyo kooxaha xagjirka ah ee hubaysan ويستنكر الجهاد والانتفاضة ويتهمها بالغوائية والفوضوية ولا تمثل عنده مقدسات الأمة شيئا اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين يا ذا الجلال والإكرام khudbadda ayaa kicisay dood kulul oo qaar ka mid ah dadka twitterka isticmaala iyo siyaasiyiinta carabta waxa ay hadalka imaamka ku fasireen inuu u gogol xaarayo in dhowaan dib loo soo celin doono xiriirka sacuudiga iyo israa'iil dadka twitterka isticmaalayay ayaa waxa ay weerar kulul ku qaadeen qadiibka xaramka maka waxayna ku eedeeyeen inuu ra'yigiisa hadba u dhigayo si waafaqsan mowqifka madaxda qaar kale ayaa waxa ay soo qaateen khudbad kale
oo uu Sudaysi hore u jeediyey iyaga oo sheegaya waxa uu xamaasada dadka masjidka ku tukanaya ku kicin jiray oohintiisa iyo ducada Falastiiniyiinta iyo inuu cambaarayo siyaasadaha Israa'iil iyo xulafadeeda halka dadka qaar ee Twitterka isticmaala ay faafinayeen muuqaalo ka dhan ah khudbad kale oo Sudaysi ku amaanayo maamulka Trump iyo xiriirka xooggan ee uu la leeyahay hoggaanka Sacuudiga qaar ka mid ah dadka ololeynaya iyo siyaasiyiinta ayaa waxa ay ku doodayaan in khudbadaha Jimcaha laga jeediyo masjidka Sacuudiga ay weligeedba ahayd goob laga dheehan karo waxa ka dhacaya dhismayaasha maamulka iyo goobaha aan xogta badan laga helin ee maamulka